marka inta sax ku walaalaheeda ka turjumay sax waaye ha ina ka tagto ku khasbanta laakiin ninkii oo fiican oo ku rabo ilmihiisa dhaqanahay heerkiisa wuxuu ogol adiga aan akal kula keen aan soo daahin waxyaabo khalad aan sameeyay adiga waxaad gudbinin صح ila xad dadku waxay arkaan hiblay waa la furo ninkii waxa la biil buukay naag loo guursaday xad gudub kale oo gabdhaha loo geysto aan loogeyn السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkan waa Bulala Media wada alaab naga barteen barnaamijyada xiisa galiya caawa waxa marti oo iigu ah gabdha aad iyo aad ugu wada taqaanaan social media oo caan ah marka barnaamijka caawa waxaan ku casuumay Caasha Caagane anigana waxaan ahay hadman cadceed marka caawa barnaamijkan ka hadlayno waxa weeyaan maxaa sababa furitaanka inta badan waxaynu aragnaa dadka Soomaalidu aad bay isu furaan waxaad arkaysaa 19 jir la furay waxaad arkaysaa 9 jir la furay waxaad arkaysaa 15 jir la furay marka furitaanka uu batay lama garan karo waxa sababay marka waxaan rabnaa caawa inaan barnaamijka uga hadalno waxa sababay furiinka maxaa sababay barnaamijka caawa qodobka doodu marka waxaan ku soo dhaweynayaa walaalahay bal iyaguna marka hore ku soo dhawaada Bulala Media waa mahadsantii asxaabta Bulala Media ana waan salaameynaa aad ma asantahay abwaan asxaabtada waa salaameynaa waan ku faraxsanahay halkan kula kulannaa aad baad idinku mahadsantiin aniguna waan soo dhaweynayaa idinaguna intaas kale aniguna soo dhaweynaynaa waxaan ka hadlaynaa maxaa sababay furiinka oo qodobka dooda caawa uu noqon doono bal waxaan dhahaynaa maxaa sababay maragga ayaa dhibatay oo de gabdhihii markii ninkii isoo markii hore barlaawo ahaa markii waxoogaa intii guri iyo gogol fiican loo dhigo yaad maalinta baad arkaysaa isagoo gabadhii uu furay ma isagaa sababtu ma dumarkaa sababtu ma garanayno kulli idinka ka soo joogi doono laakiin bal waxaan rabaa walaalahay inaan ku soo dhawaayo sababta furiinka keentay inay caawa igala doodaan qodobkaas ku soo dhawaada waa tahay labadana qof ma adasin kulli hod meel aad ma qaadanaysid ma yaadan ku soo marka mawduucaad ka hadlayso horta waa mawduuc aad xasaasi oo marka bulshadeena loo eegana aad ugu farabadanaya marba marka ka dambeeyo maxaa la lahaa qarniba qalbi ka dambeeyo qarniga ka dambeeyo sanad ka dambeeyo aniga sababta ragna ma saareen dumarna ma saareen laakiin mas'uuliyadda ugu weyn ee furiinka ragga u sababa mas'uuliyadda ugu weyn ee furiinkana dumarka u sababa labaana u sababeynaya labada waxay tahay marka hore furiin markii la dhaho wuxuu ka imaadaa qofka ragga ah oo asaa dalaaqada ay isaga wax furaad leedahay asaa wax furo oo dumarku wax ma furaan waa sax laakiin horta ilaahay markii uu guurka soo dejiyay furiinkan uu soo dejiyay oo waa wax markaasi nasteexa ah hadii guur bas uu jiri lahaa furi jiri lahayd dad badan isku baabi'i lahaa cirkii dhulka ilaahay waa weyneeyay furiinka waxa loogu talagalay labada isfaham weys inay kala macsaanaystaan si fiican marka sidoo furiinku uu jiro uu yahay wax sharci ah guurkan uu sharci u yahay haddana markii si loo fiiriyo hadda waxyaabo easy la isku furaa صح remote TV-ga lagu daawado ee iskula dhageen dartooda isku fureen aad maqlaysaa marka ku sideen maayo ciyaar raba anihin diyaar raba si fiican marka ragga waxaan ugu sababeynayaa islaantaada haday ka badido ifur iyagu hal qaado hal xab laba hadhay صح markii hadana la murmo hal dad baaqil isku soo celiyo weynaa ilaa naagta ay soo marta ma ahane hatta ay sameyn karaan taamid ma tahay asaga haduusan xooga saara marka ay furtiraado inuu ka dhunto ama meesha ay furtira kaga tago reerkaas xoogaa waa dhismilaha laakiin markuu iyada ay furtira asaga inuu galkii halka dalaqa kala soo baxo uu dhaq ku siiyo burburka qayb uu ka yahay asagana taa waa u sababay hal baan rabaa inaan taana walaashin maya intaan taa aan ku dhameysto tii dumarkan ku darsanaya waxa rabto weydiinaysaa tan dumarkana waxay tahay dumarow markii yani wax yar aad dareentaan oo yani ninka aad wax yar ka dareentaan wariyaa kuletiga gudisa wariyaa fur iska daayo ayadana reerka wuu dumaya hadaad taada ninkaaga wax yar oo micno lahayn sheeh qabo baa u geysay markaasuu ku dhahay maxaa sheeh u kuleeweysay markaas tira wariyaa anima shaqaala ku waa dabku saar kartaa iyada la fikirka shaqaala ma ku iska keefur صح iska keefur ay marka guriga hooyada sheeh qabooji kula mid la leeyahay jirin iska ama lagu dhigi jiray okay aad ma hasan ku taayay fikirka waxa baa sheegtay wax badan baa ka runa ma garanaysaa wax way horta arrimaha adduunka jira maanta waan ognahay waan anaga Soomaali baan nahay ninba wuxuu gabiyay gabar muunada weyn Maryam Xaali Muuse Korisay kol haday mardaafiin taqaan mooyisay noqon marka adiga laftiga wala fiicayso marka adiga laftigaaga aad gabar tahay reer ku dhalay gabdhuhu maanta meesha ay marayaan iyo qiimka adduunka ay kala yihiin iyo hadana Soomaali nahay gabdhuhu say noo yihiin aniga hadda waxaan ahay gabar aabahay baan alxamdulillah rabbil caalamiin mas'uul ah
hadduu dhinto walaalkay haddii isaga la waa adeerkay awowgay in adeer intooda rajaa baan soconaya laakiin raggu taas ma haystaan anagu horta mar kastaba ragga waan ka sarrayna ilaahay baa naga sarraysiiyey markii qiyamka xagga loo iyaguna magta unbay naga badan anoo taageersanahay waan aaminsanahay oo because of wiil kastoo wanaagsan hooyaa dhashay si fiican iyo madaxweyneba ha wiil kastoo wanaagsan madaxweyne wuxuu rabaa eebka yahayba hooyo unbaa dhashay soo korsay maarta wiilkeedu yahay marka adiga laftigaa dad gabar tahay furiinku ma anfacaayo oo maalin kasta ilmo cusub iyo nin cusub kori iyo hebelow islaam baa waxay igu tiraada hadda ka hor iga sheekaysay maraan Soomaaliya hadda ayaan dhultubala aan joogay waxbaan ka sheekaynaa furiinkaas waxay igu tiri ninka i qaba hameen iyo maalin waan isdagaala oo naftiibu ii keenay xataa ilmihii baan ku heshiin weynay laba cunug aan arag guriga ayeeyood baan u diray waxaan ku iraaday marka waan badnaynay dumar baan iska waxaan ku roma ka tagtay maxaa ku agtaaga markaas hadda walaahi markaan hadda ka tago in allaala intii nin adduunka naaguhu naceen mid xoogaa dhimir ka jiro mid qaab daran mid la soo ceyriyey mid inuu gabar la hadlaba u qalmin baa fayl ku soo gablaya garoob ma baa guri oo been oo furan marka gabdhihii waxa fiican gabdhuhu waxyaabo badan inay sida dumarka caqliga wax u fiiriyaan kuwa badan oo arrinta koos waxa fiican inay maaragtay si wanaagsan ma dhanka wanaagsan ka fiiriyaan صح ninkaaga hadduu xun yahay hadduu san yahay adoo shalay gurigiina caso caana macaan jooga baad ka soo daba orod laguma khasbin waxa laga yaabaa in aabaha kula kaalaad ka dhumatay adiga ku watee kaama dhex geline inta badan haweenku iyaga isxaasida seen wada ogsoonna oo waxa laga yaabaa labada dumarka isugu saaxiibsan haddana waxba isuma ogola oo maanta dee wax yar fiican ku warta alla hoogto kuma dhahayso waxan uu fiican yahay iyada ogun fiican ragga xilka isugu haystaan ku ogeynaa marka waxaan dhihi lahaa waxaan dhihi lahaa haweenka laftirkooda isuma quran nolosha fiican oo waxa laga yaabaa ninka fiican saaxiibteedu ma ogola oo marmarba dhigan sidan weeyaan oo isu sheekeeyaan waxyaabo iyaga laftirkoodu waxa la loodo moogtay cagaha iyada biyaha isku dhaafsanay afarta u horeysa ku dhici xag kale uga baxayaan kuwii dambe iyaguna ma cabayaan kuwii dambe waxa caban meelay marka way qaslayaan marka ma isdhihi karnaa haweenku iyaga oo sawa in la isfariyo dhexdooda fikra kuma raacsanay aniga doon la hadan fikirkii ana waxay taa dumar kore mas'uulka ah maaragtay afka dumar ku hadlaya صح hadan taas ka dhex galo anigu ninkayga un baan gabar kale u ogolaan laakiin gabar kastoo nin fiican haysata waxaan aniga ila tahay inaan ku dhaabay ma sha Allah nin wanaagsan baa si fiican u dhaqo iyo magaranaysa hambaliyo صح وعقاق ها وحقيقة لكن قف كنا حكم شيء كرا فكرة شيء إن هذا ما كسر جيدا مرة دي أن مركزي إن ميل لو ضفريو دي موضوع ويا موضوع حساسي إن دوما كقار صوب ونقون كرا صح إن واحد أركيسا جبر إن يعني مد هاي قبل هودن جبر أو إن جبر رير له إن كذي إذا مركو جلدك إما هذا كبها كقادة إن بيها وكل ليسا إن عشرة وحيسة تي في كابس عيال ككال حريص مركو إما هذا نصينا سيسو صح مركاسي لين واتناتيني كعبوديسي تقوى ولا رتاسي دميري marka ninkaaga raali ah u noqota sida quraanka lagu sheegay waxa la gabdhaha waxa la yiri jannada way u fududaas ragga duma fududo waxa la yiri gabadha hadee shanteeda salaad tukato ya isagana xaajigeeda laakiin ay adeecdo no romantic waa weyn ku soo baxay ma dhigi karaa romantic marka waa iskaga xun yahay aniga waa iskaga xun yahay marka hodan waxaan ku leeyahay way jiraan dad kaga xun way jiraan anaga ma dhigi karno anaga uga xun ma ahane way jiraan way buuxaan dad yani waxaas aan ogoleen xasaasiye ka qaadaba nin laga dambeeyo nin isas la yeelo nin kadabkiis in la gooyo gabadhii tiri rag dumarka waxa loo qaybiyay 7 maxay ku soo dortay in kabara jabisa yaye 7 daan ma tiri kariye marka muhiimku waxay ninka yani hodana dhameystiraysa ninka yani mid nin jaban oo yani waxa laga wadaa aan wax haysanin صح oo yani asagaba tiisa u yaabana inay yani ay ka saarto booski ay ka dhigto nin fiican oo fariid ah ay bismillah markuu jidka maraa ma sha Allah wadi amarayo midna asagoo mas'uul ahaayo ninaan caadi ahayn ahay markay guusatay waxay ka dhigay jiisi jab صح marka midna waa dhameystal yariyo waa gabar dhameystiran oo wax ka qaldan ma lahan marka dumarkeena ilaahay khayra siiye iyaga marka asaaskii qoyska iyaga ah markaan ka hadlayno mawduucyada noocan waxyaabo waa dhici kartaa garafooyin inaan soo gaarsiino naga raalnay qodo laakiin iyada waan leenahay hadda ka hor baa maamo daahaan iga weyn laga yaabo muuqaalka inay daawanayso ma garabo inaan magaceedu xuso si fiican waxay igu tiri waxaan dhalay 19 cunug haddaan qaldaneen ما شاء الله marka cunugtii gabadheedu ugu weyn dibadda ka imaatay ilmaha uga soo tagtay barnaamij marka haweenka oo garoobada ay qaban qaabinaysay ay joogtay marka waxay igu tiri waxa ay habar yar warigii iyo Allah ninkeyga waxay tiri ma dhihin ifur iskugu ma imaaneet mana isku dhicinay asaga
sidii maalintii uu reerkeena iga doontay uu ii qadarinay uu lahad ii qadarinay ii jeceliye dhahday waxaasna waxaan ku gaarna kala dambeyn waxaas waa tashi waxaas saas ayaan xaaji saas ayaan saas ayaan halaasa ku soo gaarnay laakiin laakiin waxay tiri haddii laygu sameyn lahaa waa laga yaabaa reeraha qaar burburi lahaa nin ninkeyga naag igama guursan laakiin inuu naag iga guursan waxaa keentay tiri saa iskugu tiirsannahay oo iskugu tiirsaneen saa ani aaminsanahay tiri inkastoo ragga qaar ay kala door bidaan inay ragga xaas basadaan xaas yareystaa iyada laga yaabo kii xaaska yareysanaya kusoo aada dooqiisan aysan ahayn inuu naaga badan guursado laakiin halkaas tusaale waxaan kaga bixinaa waxay igu tiri hooyo naag aan faraqeeda ilma buuxin caruur ma korsato markaad awlaad haysatay tiri ninkiina uu xumaado wuu xumaan karaa ninkan waa nin bini aadan ehel baa ku xiriiro dad baa ku xiriiro ninkan waa bini aadankana ilaahay abuurtay wax walba siiyey ku caasiyaan si fiican marka adigoo aadana maxaa maku dahayaan marka waxay tiri waan sabray guusaha isdhaafsaday tiri waxay dhahaan soomaalida silic ku nool soddon guusataa waxaas waxay tiri wax fiican ma aha inaad maanta albaabka garaacad oo tiraahdo haye sax marka lagu sidii hodman ay sheegayso kale taa lagu dhaho nacaskiiba hebla garoob ah hodman ay ma qabtaa soddon guusataa maxay dhahay silic ku nool soddon guusataa dhaanta horta haddii ninku intuu kusoo guursado horta abaayad halka waxay kusoo dartay ninka iska jajafatid oo aad maaragtay horta qofna ma anfacayo qof qaab darno maaragtay sax guriga haddii saaka intaad soo kacday aad hagaajin aad tirtin aad nadaamin adiga xataa noloshaada maaragtay compatible kuma ahaanayso marka ninki inuu inaad jajabto ku khasbanta asna sidoo kale haddii wax kaa khaldan inuu ka jajabo uu ku labada dhinacba ha because waxaa la iskaashata ma kufta haddii ay kuftana ma jabto ama ma kici weydo waxa waaye horta tiin meesha soo galaysa laftii ninka inaad jaftid oo adaniisa ka shaqeeyay sanadada ka shaqeeyay dantaa ku jirta silic ku nool soddon guursa dhaanta ninka intuu kusoo guursasay ku arkay dameer uu reer ka soo kaxaystay marka inta silic ku noolaaleeda ka turjumay sax waaye inaad ka tagto ku khasbanta laakiin ninkii oo fiican oo ku rabo ilmihiisa dhaqanaya heerkiisa wuxuu ogol adiga aan akal kula keenin aan soo daahin waxyaabo khalad aan san adiga kuga xadgudbinin inaa dadku waxay arkaan heblaay waa la fara ninka waxa la biil buukay naagta loo guursaday xadgudub kale oo gabdhaha loo geysto aan loogeyn baa ka badan marka inta duusa kula imaano ninkii de saas isku guursan isku ahaanaysiin wixii khalad yar dhaco maaragtay la sixi karo aniga ma qabo inay gabdho heerka ka ka turturiso sax oo ma garanaysa ilmo kale aabaa laftigooda in hada guri wareer bay ku tahay mid baa imaanaya kii kale imaanaya kii kale guriga wuxuu noqonayaa guri oo federalism ka jira sima goboleedadii dowladda Soomaaliya maanta qabiil hore nin hore ka dhex galay maadaama barnaamijka gobonooga yahay mawduucan ma aha mawduuc hadda inaad u siman saxta waa ka jeclaan lahaa qaybo badan oo baarti 1 iyo baarti 2 dadka si in badan in laga doodo dad fara badan xataa takhaatiir la keeno maxaa ugu wacan horta warfureenka yani takhaatiirta xataa markii la weydiiyo oo yani cilmi baarista markii la weydiiyo yani sayniska markii la weydiiyo xataa way ka hadlayaan yani dumarka ku qufulan ah haddii dumarka ninka haddii uu wax ka sameeyo inay tiraahdo ay fur waa cudur iyada ku dhegan waa qodob kaliya u banaan waxa ugu maya waa tii ugu yaabka badneed waxay tiri 20 sano nin isqabnay tiri gabar ifur ba hal mar iriyay tiri uu ifuray hal mar kaliya hal mar ay tiri markuu furay waxay tiri 20 saacadood aan ooynayay tiri may wadi jirtay awal uu uga dhaweey jiray hal mar looga dhaweeyay ma gashay islaantii aan dhex galiyay taa marka waxay tiri waxay igu noqotay lama filaan ilaa la igu noqdo caafimaad waa heli waayay tiri marka islaan kalena waxa laga sheegay hooyadii aan ka maqli jiray ifuray si ugu heesaa leeyahay baa la furay buul beentay gashay ala Allah se qabsatay ما أنت لفري سبح هذيك وحالي ما ماذا رجعت له وما ماذا كنا أنا لا سكده ساي وامر والد الله مايا وربنا كله أنا ونين كشلا قولوا هاي أباي كسر راعي أنا جبره بقولني إذا برديس لأن رنتوا أبنا موقتا جبر كست نين كست كنا عوش كان صدا ناقص كنا عوش كان صدا شعر ما أنت ما دهنا أنا قد ما قرنا سكمال الدون أما صراع هلني كشوجا marka aan ninkan soo raacay kan ka doortay oo ka magaas heerkan ana soo joogsan ninkan doortay aan soo raacayo leeg golfrista abahay u dhikaaxiyay oo ma garanaysa si sharaf aan ku soo raacay sababta aan u dhihi karo ifur maxay tahay way waxa keenay had gabdho badan waxa loo sheegay ayagoo waxay dhaan baa ninkan isma laha ku furay wax isdahay maarta ku khalad ka saxo ma ahan gabar adan kula talnaya ninkaaga ilaa aad nacdo aad ka dhamaatay farain waa khalad cod baa leedahay gabar baa tahay hooyada reerka tahay guriga adigu ku dhisan yahay ka dad wixii miisa keen waxaan ay ugu sameysay khaladkaan ay gashay kana sameysay mar dambe ay ugu sameeyeen صح الله هذيك اللي قرمت لكن يفر معي اضيف واحد تقف على انا نقول سكن ما سوق فريق ما حطها اضيف ولا قف باتا موقت وين اضيف رايك كده كلكم ها وين فريق waxba ka horeeyo because فريق waxba ka horeeyo صح marka waa tahay marka barnaamijku waa gabagabo aad bay u mahadsan yihiin hodan cadceed iyo caasha caagina oo iyaguba martii igu soo way ku darsadeen barnaamijku waa maadaama hada waxba igu soo dhacay diyaar waaye hal wax raba inaan ku darsado waa mahadsantihiin
gabadhan waxay ka dhawaajisay inta badan hodan ku celisay anna aan ku celinaya ifurha ku bedelan iyo xaajiso ku bedelan xaajigaaga oo furiinku nagu batay aniga naftirkayga furiinka ma jecel wallahi marka arkay inta ku dhigtay xaajiso wariyaan ما مفرق يعني نكو إفرو لويسا كوينا aad buu mahadsanyihiin walaaladii waan uga mahad celinaynaa sida qurux badan ee caawa barnaamijka ay uga qayb qaateen barnaamijka lamid inta aan ku kulmi doono waxaan idinkaga digaynaa sida iyo nabadgelyo